warwaadigan kashkashdayna kelmadaad mar tiraahdo midii kaabil ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii Kalamaan kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kuroodanan kolkooda way kurbadii ahayda sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn hadduu kaagu shaariya ma kayga niqatala dadku waa Kalamaan kulmiyana midaysay maxaa tiiriya may erti midaysay maahino warnimayo xageed ka timaadeen waadinka isdaba jooga maanta war masaajidkan ka nimide adigu halkaad ka soo gaartay war laankuun salaada ka koyni madi usileeye salaad duur may deernaysa walan wada marba hadii la adimo salaadi waa tukanina anagu war masaajidkaas bisla laga adimay masaajidada kale talagama adimin duur galaashiisa doqo maalin muda war salaadi waa lagu jiraa adinku ma marantiin war horta dadaan waysta qaadama dukan karaan war marona la aqimi masaajidkeena war keenna waa xiran yahay maanta waa la aqimi ma kuwaasaan la dukanayna marka war anaga sheeqayna wili masaajidka ma iman war anagu masaajidka ayamahan kuma tukanay moolacan u socnaa wariyaahe bidcadu iyo san idin qaldin unihan salaad maska daradaanoba wax kasta hadii la sheego anuu rakisan la dukan maayo war inaad geed diraaga diido oo Abu Xuseen la dukato waa dulmi weyn war haanasay ko fi saliida masaajid iyo mayka jeeyada nafta yaabwa war anugu masaajidkeena salaada subax aadanka koowaad 8 saac la bilaawa waxaan buu fahmibo ama cooba adimiye ama muriid maxas u jiifaa xulfaan inaad dugtaas laba kaas ama masaajid dumisan oo kasaani Soomaaliyay waqtiga salaada intaad Kalamaan ka tahay wax kale isku maan ka noqon mayso war adduunka orana marna habeentaa marna maalintaa maxaa noo sheegay Soomaali qalbigooda la isku keeno war itraaf bal isku raacilaane masalaad bal isku raacina annaga lafteenu nidaamka federaalka iyo farmaajan heshiisiin laana wadaad leeyahay Abdul Hayy oo masaajidka Umar bin Khadaab qadiib ka oo maalin dhaweed la hadlayay jamaacadii masaajidka wuxuu yiri ninba hadda ka hor waxa la baray salaada sida loo dukado iyadoo aan arkaamaheedii iyo shuruudaheedii si cilmiga loo barin way iska qarbarbaysan jiray kadib ninkii markuu ayaan sidaas ku waday waxa la baray kitaabka safiina salaad la yiraahdo wuxuu ogaaday salaadu duka jiray inaysan sax ahayn kadib ninkii waa ducaysto wuxuu yiri ilaahu safiina salaad ka hor salaadan duka jiray ajir kama rabee dambigeeda haygu cadaabin marka Soomaalidu sida hadda ku socoto dawlad ku noqon mayse ilaahu tawfiiqda waafajada awoodda u leh warniyo soo diintu waasiyo maaha dawladnimadu waa nidaam iyo kala dambayne waasiyo qofba suu raba yeelo maaha anigu dastuurka Soomaaliya la yaabay waa qodobo tiro badan oo qofba suu raba u daliishado marka waxaan ku talinayaa hal qodob in lagu soo koobo ninbadan u qaadi karin wadaad dastuurku isma khilaafsane dadka iskhilaafsan warnamiya shanta tir islaamka to oo lamba meelifada nagsada korom ee daliil iyo waan saawo marka iska dabareegi malmaluuganti iska dhaaftan isalaad lambool boqof sidifada untu kudaw ilaahay dabakanen war ya ma salaadida ka qosayadu ma taada dukat tawxiidka hayna taqwada iyo tasbiixda waa tirsaheena tiirkeen tawbada waaye amiin naw yaa ku duceeyay labadu aragtay ambaraye war galeer maanta waa gabiyay galeer gobiy shimbirtalen sheege war shimbir loo sheegay maada ku sheegaynayna dhageyso wuxuu yiri ninka diinta sheegtay dacwad faafiyanahay dawgii rasuulka leh misna booli daaqee ka dhiigiga xiyoonine xaaraanta dalamsada maxaa lagu daweeyaa yaa oghe war galeer war kama haysida wuxuu yiri nin dastuur lagu doorto dad inuu ku dhaqa iyo loo duubay madaxnimo hadduu diida gabigiis duuduuba oo qubo maxaa lagu daweeyaa waxaa lagu daweeyaa ku diidnaya hor u soco war galeer xitaa odayaashu galayna dhageyso odagii la duubo dusha shaalka saarto deegaanka oo idil duca looga qaadee intuu dawladda u tagay ka durduurtay maalkii danyarta iyo maatida laga soo daldalayee ku dakeeyay boobkaas maxaa lagu daweeyaa kaas daawadiis dufka bah daartana malkii aragoo waleere war odagu dawladdu waxay siisay buu qaatay ma dablay wata madadu boobay war waxaan maqli jiray waa su'aal daaweyn oo madaxa daalinayse haddii dawo bukooto maxaa lagu daweeyaa duq haddii la doorte darajadii la saariyo hilkii daryeeli waaya dawa bukootay weeye war odayaashu duubabka waa iska xirteene cid duubat
kortay oo caano ku shubtay ma jirto dantiisa moogaa la yidhi mar hadduu kortees dhammaada waryaa nimaan dantiisa aqooni duub ma xirta nagala tag sheekada war ma haysaane madaxweyne farmaajo wuxuu ka khudbeeyey golaha loo dhan yahay qaramada midoobay war khudbadiisa weli edhitinaa ku socday ha la soo jarjaray sug war mar horaa la qoray wuu akhrinaya maxaa laga soo jarjaraya war ma haysiine madaxweynaha turkiga Erdogan khudbad culus soo jeediyey yaa maandhow meeqa kiintaale ahayd yaa la qaadaayo war waa waalatiina wuxuu soo bandhigay qariiradii dhulkii reer Falastiin oo hadda Israa'iil xoog ku haysato wuxuuna sheegay 1940 wixii ka horeeyay in Israa'iil aysan dhulba lahayn war Erdogan war kama haysaane wuxuu yiri ma aqbalayno in wadamada islaamka Israa'iil loo ihaaneeyo war yaa Erdogan waa geesi tol waayay carabta uu raban inuu dhulka u difaaco iyaga Israa'iil daba dhilif waa war Erdogan tol ma weyn waa nin Turkiina dadka badan lama arko war safaaradda Turkiga xafiiskii fiisidilka dhiibay beedka dhaqtiisa ka soo bididlaan weelba sidii fududsan ka gaadada war isbitaalka Erdogan lagu magacaabay lacag la'aan ma laga dhigay cambar intee laga haayaan ku geeya isbitaalka Erdogan war yaa xafiisadii magaalada laga furay haddaan fiisa doonanaya maxaa Soomaalida Ilaahay wadan waa siiya laakiin waa garan laadahay wadankeeda waxaan ku talin lahaa in ayada dhan dibadda la geeyo wadankan aan Turkiga ku amaanaysano shaqfira lagu yiri Ismaaciil Umar geela wadankan uga dhow Turkiga warniya wad waalantay Soomaalidu meeshay ku dhalato kuma dhimato wadankiis ninkii ka tagay wehelkiis ka dheeraadey welwel mahuro walbahaar madii hadda koonfur galbeed mar hore kugu dambaysay miya war si aad bu'aal ugu xiistay ayuu hankolka galmudug gaalkacyo ugu xiisay wayna waaxido wadankeeno samee nin walbo wadanka wax ku dhaama male maandhow waxaa hore loo yidhi dal shisheeye waa dareen ku joog aniga yaa lay wadin warnimaya war ma haysaane waa tii ay kulmeen Uhuru Kenyatta madaxweyne farmaajo Uhuru Kenyatta qaramada midoobay khudbadii ka jeediyey warbadeena ma loo dhaaf warbad dhaafi maayo wuxuu yidhi waxaan markale codsanaynaa in Soomaaliya ay naga aqbasho inaan wada hadal ku dhameeyno xiisada naga dhaxaysa war nin aadan baradu waxa uu soo diray waad u egtahay war afayeenka madaxweynaha Cabdinuur shalay waxaa la weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda Kenya inay tiri wixii khilaaf jira wada hadal in lagu dhameeyo waa ku faraxsanahay marka ujeedkaasi soo arrinta badda in laga wada hadla ma aan baa la yiri Cabdinuur waxa uu ku jawaabay anigu Kenya afayeenuma iyo warkeedana wax igama gelin laakiin waxaan ku cadeynayaa badda Soomaaliya waxa laga wada hadlayaa inaysan ka mid ahayn ee naagta madaxa bililqada wadata warkeeda igala tag war afayeenka maxaad ka sheegaysaa madaxweyne farmaajo Donald Trump uu la kulmay waxaan u malaynayaa inuu yiri baasaboorkaagii waa ku celiyay arrimaha Soomaaliya faraha lama geli kartid intaan ka ahayn diyaaradda shimbirta oo cirka uga soo dhacda argagixisada waryaa marwooyinkoodii baa kulanka kula jiray maad sheegto maxaad uga tegaysaa naadu hadaad marwo tahay maaminkaaga joogta maxaa faraha siyaasadda ku galiyey waryaa raggii markay gabeen kaalintoodii bay dumarkii guryaha ka soo wada baxeen oo raggii siyaasadda ka fara maroojiyeen walle raggii daadaa u soo galay war soo jeedkiinna sii jeedkiinaba ka wanaagsan war Kenya iyo Uhuru Kenyatta iyo naagtaad sheegaysaan oo madaxa bililqada wadata maxay bad islaamiyada daba dhigtaan war kana na daaweynaya ditoora kuwa la hadlaya la shirshiraya iyagana ma daaweys kana iyagana ana daaweynaya kana macallimiga xataa soo raawad waalata kana la ku daaweynaya war doctor hawada Soomaaliya daawo ma baahna Soomaaliyana 29 sano kadib waxay ka qayb gashay shirweynaha duulimaadyada adduunka ra'iisul wasaare hawadan maamulkeedu khilaaf iyo in lagu dagaalamo iyo isqabqabsiiba nagu soo kordhiyay naga alshayada dham war waxaan codsanayaa hawada in 4.5 noo la qeybi anagu mar hore waxaan nidhi hawada Somaliland faraha looga qaado waxaan garanaynaa in isku qabsanaysaan war Somaliland ilmii duulisti hawadii u joogay way soo erdeeyeen way soo buriyeen garoowayna fadhiyaan war hawada nimankan ayaa lagala talinjine shariif ha loo fasaxo kismaayana xanibaada laga qaado war shariifku usan hawada ku guulguulaysan baarshuud silan karo ma kasaw ma ahawsan war wasiirka duulista hawada Omar ma laga dhiga madaxweynaha Jubbaland hawada la fasaxay eega madaxweynihii Puntland dani wuxuu ka qayb gali cali masaarka Sheekh Axmed Madoobe war hawada laga maxay karmaya asaga war Cabdirashiid Janah wali lama soo deyn maxaa beentii ku watay war wax kasta hadii ay dhacaan hawa Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif laga xiray wallahi antani maray
بالله والله اللي يلين وبالله اللي يلين هو الشيخ شريف يو حسن شيخ لو ديدي والله انا طول كلام دونين والله بالله يا اري ورد ماشي سوي سعودي إنا سلمان وحو قرتي دلكي يا قلشدي جمال كشورجي هذا اول با waxaa la yiri sida uu batay ina Salman aadmi ugu cunay ana qashay buu qirtay warda ku dhaqin karaa madiina bi ku dhamaadeen in sheega maaha war magaalada qaraxyadii dhulka la gelinayay iyo kuwa la isku dhexjaayaba ku soo batay ambar goorme baawur yeelatinay baari waaye war yaa qaraxan baawur iyo lugmudu dhaafay lama arka nagala tag sheekada ma inii hiraw mawlo buudka gabna war galmudug ayaantan shib way xaalkeedu ma meel fiican baa wax maraya yaa warkaaya war la agdi qeyr hanqaybiya aamo amaditaas ku dhamaato war jaraniin wada war galmudug aan lagu shaqshaqaynina naga dhaafanimaya waradar war ma haysaane shidaalkii Soomaaliland dawladda soo dejinaysa ganacsatadiina waa laga joojiyay war ma aytiin musharaxa madaxweynaha galmudug waa jenaraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare jenaraal Cumda waana taliye ciidanka nabad sugidda waana halgamaa howlkara war asagoo weeg jenaraal Maxamed Ali Samatar ayaa sawiradiisa boorar waaweyn ku dhagdhagan dhuusa mareeb laga taag marka waxaan ka baqayaa reer galmudug jenaraal Cumda iyo jenaraal Ali Samatar inay isku qaldaan war madaxweynaha galmudug waxa loo saadaalinaya Cabdiraxmaan Odowa war beentaan iska daa madaxweynaha galmudug dhaartu u dhimantaa waa qoorta gareen war yaa mudul ninkii dhisa ka weyn Cabdiraxmaan Odowa galmudug ninkii asaasay weey asiga asaasay ki war yaa asaasa la isku weelay lanki buurka magacaawta madaxweynaha naga gobolkaas war dawladu ba meesha ka saarto laga tagay hadalka war meesha waxba kama gelina ka amsarimaha galmudug war horta maandeesko maxaa isku kiindiray adinku war galmudug ta sheegaysan ii kana daaweeye war Soomaaliland naftirkeeda hal ii kanu way waalatan jubbaland ka taran way waalayihiin waa waalatan waa xanuunsatay iima waa xanuunsatay inaad waalatan xeer lahayn caafimaad ma helaano waad waalatiin waa meeshana waa waalayihiin inaad waalayihiin adna waa waalatay ayaa waalan artikor waalinta badan daawada in ku dhamayto